Trump ayaa waxa uu qaadayaa tallaabo aysan jeclaysan doonin qaar ka mid ah madaxda wadamada Afrika qaarkood oo ay ka mid tahay Soomaaliya. Walaaca ugu weyn ee hadda soo kordha waxay tahay in uu qorsheynayo inuu xiro saldhigga iyo howlgalka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM loo yaqaano, kuwaas oo ka qayb qaata dagaalada ka dhanka ah kooxaha argagixiso ee ka dagaalama meelo badan oo ka mid ah qaaradda Afrika. Haddaba saldhiggan xiritaankiisa sidee baa xogta lagu helay? Trumpna muxuu qorsheynayaa hadda inuu ku dhaqaaqo haddii saldhigyadaasi uu xiro? Saameyn intee le'eg ayaa arrintan ku yeelan karaysaa wadamada ku yaala gobolka? Warbixin kooban ayaan arrintaa ku eegayaa saaxiibayaal oo ay hadda si weyn u hadal hayaan warbaahinta Mareykanka ee sida gaarka uga faalloonaysa dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ee Trump uu ku sameynaya caalamka, waxaana markan indhaho ay qabanayaan qaaradda Afrika. Soomaaliya si gaara saameyn intee leeg ayay arrintani ku yeelan kartaa? Cabdulcasiis Barrow ayaan ahay saaxiibayaal, si toos ah ayaad u daawanaysaan barnaamijka Barrow Show. Fadlan ku soo bir YouTube-keena oo subscribe saar, aad baad u mahadsantihiin. Telefishinka NBC News ee dalka Mareykanka laga leeyahay ayaa goor dhow baahiyay isagoo xiganaya ila ka tirsan saraakiil sarsare oo ka mid ah militariga Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in la xirayo taliska AFRICOM ee Mareykanka ee qaaradda Afrika. Arrintan ayaa laga baqdin qabaa inay saameyn xoog leh ku yeelato qaar ka mid ah dalalka ku yaala qaaradda Afrika ee hadda ku jira dagaalada ka dhanka ah kooxaha argagixiso, waxaana wadamadaasi ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo ah dalkan ku yaala geeska Afrika. Haddaba warkan markii uu soo baxay ayaa waxa ay warbaahinta NBC News ay ugu horeysa durbaba ay bilaabeen in ay faalleeyaan arrintan iyo saameynta ka dhalan karaysa mustaqbalka. Waxyaabaha ugu weyn ee la eegaya waxay tahay waxyaabaha keeni kara in Trump go'aan noocaana oo degdega uu qaato. Waxaase soo baxaya in arrintan ay la xiriirtay in go'aanadiisa uu ku koobayo oo kaliya xaaladaha isbedelaya ee dunida, isagoo ka eegaya dhinaca dhaqaalaha iyo weliba saameynta Mareykanka dhaqaalaha uu ka sameynaya ee dunida. Saldhiggan ayaa muddo dheer ka shaqeynaya, ama taliska AFRICOM ayaa muddo dheer shaqeynaya, waxaana ay ka qayb qaateen dagaallo wejiyo kala duwan leh oo ka soconaya qaaradda, iyagoo sidoo kale ilaalinayay danaha Mareykanka. Haddaba AFRICOM Soomaaliya kaalin noocee la-eg ayay ka qaadanayeen dagaalada ka soconayay qaaraddan Afrika, gaar ahaan dalka Soomaaliya. Marka la eego ciidamada Mareykanka waxa ay tababar siiyaan qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana sidoo kale ay bixiyaan taageero laba dhinac leh oo ku aadan weeraro duqeymo ah oo ay ku qaadaan fariisimaha kooxaha argagixiso ay ku leeyihiin dalka, iyo sidoo kale inay sameeyaan bixinta sahanka sirdoonka oo ay la wadaagaan dowladda federaalka ee Soomaaliya, sida qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanku ay ku waramayaan. Ciidamada Mareykanku waxa ay ka qayb qaadanayeen isla markaana duqeymo ba'an ay ku hayeen dagaalada looga soo horjeeda Daacish ee ka soconaya buraha Caalmiskaad, halkaas oo laga saaray godad waaweyn oo ay maleeshiyaadku ku dhuumanayeen. sida Mareykanka gaar ahaan Trump dhowr jeer warbixino kala duwan uu bartiisa Truth Social uu ku baahiyaba uu ku tilmaamay. Laakiin haddii arrinta Trump uu qorsheynayo ay dhacdo, waxaa laga baqdin qabaa saameyn weyn oo xooggan oo xagga amniga ah in ay Soomaaliya arrintani ku yeelato. Haddaba marka laga yimaado arrimaha ammaanka iyo weliba qaaradda Afrika saameynta ay arrintan ku yeelan karayso, waxaa jirta saameyn kale oo arrintan ay ku yeelan karayso dalka Mareykanka. Khubarada dhinaca ammaanka ee Pentagon-ka ka tirsanaa ayaa tilmaamaya in haddii Trump sida uu qorsheynayo uu ku dhaqaaqo, in arrintan ay tahay mid fursad siinaysa dowladda Ruushka iyo weliba hogaamiyahooda Vladimir Putin oo hadda qaaradda si weyn ugu sii faafinaya aragtida, isla markaana dalal badan oo ku yaala qaaradda ay qaadanayaan afkaarta Ruushka iyo isballaarintiisa gobolka. Waxa ay ku tilmaameen arrintan inay tahay halis iyo dab uu ku ciyaarayo Donald Trump, loona baahan yahay afkaaraha qaar ee qariska tuurnimada ah in uu joojiyo, sida khubaradaasi la hadashay warbaahintu ay tilmaamayaan. Meelaha sida gaarka loo soo qaatay waxaa ka mid ah in wadamadii reer galbeedka laga faramaroojiyay qaaradda Afrika, gaar ahaan Faransiiska oo ahaa kan ugu ballaaran ee qaaraddan joogay, in laga saaray wadamadii ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. Laakiin
haddii taliska africom la xiro intaasi micnaheedu ay noqonayso maraykanka inuu luminayo fursad weyn oo xoogan islamarkaana dib u awoodeynaysa dowladda ruushka. waxayse su-aali ka taagan tahay valadimir putin ma buuxin karaa kaalmaha uu banaynayo donald trump ee ku aadan difaacyada dowladaha uu garab taagnaa saldhigan africom. haddii aysan taasi dhicin waa mushkilad kale ayay leeyihiin khubarada oo waxaa suuragala kooxo aragti ahaan maraykanka ka soo horjeeday oo amniga maraykanka khatar weyn ku ahaa in qaaradda afrika wadamo fara badan oo ku yaala ay gacanta u geli karayso. waa hadalkii ugu naxdinta badnaa marka la eego madaxda afrikaanka qaarkood ee maraykanka ka soo baxa marka la eego hadalkan hadda warbaahinta NBC News u soo dusay uu tilmaamayaba maadaama ciidamada maraykanku ay ahaayeen kuwa kaalin weyn ka qaadanaya isbedelada amni ee qaaradda ka soconayay. Soomaaliya ciidamada Africom waxa ay tababaro siiyaan ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab kuwaasi oo dagaaladii ay galeen guulo waaweyn oo laxaad ka soo hooyay isla markaana deegaano fara badan oo shabaabku ay ku sugnaayeen ka saaray. laakiin hadda waxay sidoo kale maraykanka ka qayb qaadanayaan dagaalada Puntland ka soconaya iyagoo hawada sare ka rusheynaya kooxaha Daesh ee argagixiso ee deegaanadaasi ku sugan isla markaana Puntland ay hadda dagaalada kula jirto. tan iyo markii uu Trump talada la wareegay walaaca la xiriira in ciidamada maraykanka ay bixi karaan ayaa aad u soo baxaysa. laakiin hadda qorshaha Trump ayaa u muuqanaya in uu ballaariyay oo guud ahaanba uu leeyahay taliska Africom ayaan xiraya. xogaha ku jira warbaahinta furan waxa ay tilmaamayaan in sanadkii miisaaniyad gaaraysa 276 bilyan sanadkii 2012 kaliya ay ku baxday ciidamada Africom. sanadihii ugu dambeysana waxay warbixinadu sheegayaan lacagtaasi inay sii kordhaysay. meeshaasi ayaa laga baqdin qabaa inay tahay halka Trump uu ka eegayo xirida saldhigyadan. laakiin qatar kale oo weyn oo amni ayaa ka iman karaysa ayaa la leeyahay marka la fiiriyo dunida reer galbeedka maraykanka iyo wadamada maraykanka uu saaxiibada leeyahay ee qaaradan ku yaala. aad baad u mahadsantiin saaxiibayaal qaybtana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. haddii Trump iyo ciidamadiisu ay ka baxaan qaaradan Afrika isbedel noocee ah ayaa la